maalin dhaweys bukaan ayaa ii yimid, markaasuu wuxuu dhahay laf haddee ku xanuunayso daawadeedu waa tiibisho. Fikraddaasay aaminsanaa bukaankaas. Marka waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho wacyigelin yar oo ku saabsan lafa xanuunka iyo daawada tiibishada. Waxaan rabaa dadka inay hal qodob fahmaan. daawada tiibishada waxaa lagu daaweeyaa tiibisho. qof laf xanuunaysana daawo tiibisho lama sii karo ilaa laga xaqiijiyo in uu xanuunkaas ama infectionkaas lafta ka jira uu yahay TB. sidee lagu xaqiijiyaa? waa in tilmaamo caafimaad ama calaamado lafta ay yeelanayso qofkaas lagu arko. calaamaadkaas waxay noqon karaan kuwo gooniya sida meeshaas oo xanuunto, miisaankii qofka oo lumo, tabar darro, miisaanku yaraado, ama calaamado kaleeto TB-da gaar aanan u ahayn. laakiin intaas xataa keliya maaha. raajaa la saaraa, CT laga yaabaa in loo baahdo wax la dhaho, nooc kaloo iskaano MRI laha laga yaabaa in loo baahdo. intaas markii la sameeyo wixii daruuri ah ayaa calaamaadkii iyo baaritaanadii iyo dhiigagii la isku geynaa. haddii tuunuu sii jiro, haddii la awoodo laftaas dheecaan haddii uu ku jiro, waxaa laga qaadaa dheecaankaas ayaana shaybaarka loo diraa, waxaana laga baaraa bakteeriyadii tiibishada ee Mycobacterium tuberculosis loo yaqaan. dhakhtarka intaasoo hoola ayuu maraa in tiibisho qofku uu dhaho laftaa ka qabtaa. laakiin qof laf xanuunayso, qof jilib xanuunaya, qof si kaleeto u dhibaataysan, in la dhaho xanuunkaaga xalkiisa waa daawo tiibisho, ama qof kastoo horreysan waayo la dhaho 6 biloodlaa u baahan tahay, 6 biloodlaa xanuunkaaga xallinayo, waxaa ka dhashay kana sii dhalan doona dhibaato aanan la xallin karin oo ah in daawooyinkii tiibishada dadka dhan ay la qabsadaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha bakteeriyada tiibishada ee iska caabinta daawooyinka aad ugu badanta waxa loo yaqaano MDR, waxaana u sababa dad si khaldan u qoro daawooyinkii tiibishada ama dadkii oo si khaldan u aaminsan. si marka dhibaatadaas adiga iyo ehelkaaga iyo bulshadaba uga badqabaan, nafsadaada khatar ha gelinin, daawo tiibisho aan la xaqiijinin ha qaadanin. hadalka qofkaasi uu dhahay oo ahaa xalka xanuunada lafahana waa daawo tiibisho waxba kama jiraan. Assalaamu calaykum.